story of Daouz was inspired by women. We have a vision in the next 10 years to be one of the world's most respected and recognized consumer brand, and we're very excited about that. The mission of Daouz was born to be the leading brand of quality lifestyle for everyday needs. Here in Daouz, when we innovate, we do three things. One, we design amazingly beautiful products. Two, we make sure that they have the highest quality. And three, they offer the best value to our customers. While on a trip in East Africa, I experienced firsthand what many experience every day in that part of the world. Our story begins with one conversation I had with a young woman who shared with me deep frustrations that she had about the feminine hygiene products in the market. When it comes to our customers, we don't just listen and respond. We go beyond our customers' expectations, whether they are retail, wholesale, or independent partners. For each customer, we have dedicated account managers to help market, advertise, and manage inventory. Risk-taking is part of our culture. At Daouz, people are encouraged to bring forth their best. This is how good ideas become a reality. We pride ourselves in recruiting the best talent. What I'm most proud of is how fast my team brings products to the market. For example, it took the team only 4 months to develop Nuna from concept to market. That is excellence in execution. We have huge growth opportunities, both locally and internationally. In Minneapolis alone, we have signed up 50 retailers who have access to over 100,000 customers. In Seattle, we have signed up 7 retailers who have access to over 30,000 customers. Internationally, we have wholesalers in Kenya and Ethiopia, and we're looking to add 10 more countries by the end of the year. In addition, we provide sophisticated marketing tools to co-brand and advertise with our partners. waa tahay daawadayaal waxaan filayaa muuqaaladaasi quruxda badan ee ka hadlayay kambaniga Daouz iyo alaabaha ay soo saaraan ee ay ka mid tahay bilan iyo nuuna iyo waxyaabaha kale ee markaasi la isticmaalkoodana loo baahan yahay wada aragteen baan filayaa dadku siday uga hadlayeen haatan stuudiyahaanu dib isugu soo noqonay waxaana marti noogu ah oo balan kala sheekaysan doonaa kambanigu waxa uu yahay alaabta ay soo saaraan iyo waxyaabaha ay kaga duwan tahay alaabaha kale gudoomiyaha kambaniga Daouz Maxamed Ibrahim Guuleed waan kugu soo dhaweynayaa Home Cable TV in badan baan shaashadaha ka daawanay iyadoo la xayeysiinayo bilan iyo nuuna bal waxaan jecelahay inaan horta ku weydiiyo kambani ahaan goorma la aasaasay kambanigiina yaa sa fikirka lahaa asaaskiisa nimco ku mahadsan tahay invitation kana noo fidsan inaan imaano stuudiyaha Daouz waxaa la aasaasay sanadkii 2010 dhexdiisii hadda almost 3 sano ayuu jiraa company Daouz markii ugu horeysay fikradiisa waxay ka timid magaalada Hargeysa waxaana aasaastay gabar markaa Hargeysa joogtay ayaa lahayd fikradda markaas fikradii waa la qaaday Mareykan baa la geeyay marka Mareykan baa laga hirgeliyay marka hore ku weynaaday ku koray hadda marka dib baa loogu soo celiyay wadanka hadda marka ay dib u soo celisay 3 sano marka loo eego iyo muuqaalada aan idinka daawado shirkadiinu waa wax aad u kala duwan maxaa sababay xawliga intaan leeg marka uu ku socdo kambanigaasi horta xawliga company walba koristiisa waxay ku xiran tahay dadka ka shaqeeya cilmiga ay leeyihiin sida ay wax u yaqaanaan iyo marba capitalka ama lacagta ay haystaan iyo wadanka ay ku nool yihiin maadaama companyga headquarterkiisa yahay Mareykanka alaabtiisana uu inta badan ku sameeyo wadanka Mareykanka gudihiisa waxa aad ugu fududaatay in uu aad u horumaro muddadaas dhow dhexdeeda in fact tusaale hadda ka siiyana hadda Mareykanka oo kale
ilaa 400 oo dukaan baa laga helaa alaabta daawus sameeyo oo ilaa 38 gobol oo Mareykanka ka mid ah marka waxaan rajeynaynaa inuu intaa kasii weynaado hadduu Ilaahay yiraahdo wadamada dibadiisa marka la yiraahdana adiga Afrika ilaa 6-7 wadan baa hadda geena alaabta marka haddana dee wadankii aan soo degnay waa kan anaga Hargeysa joogna waxaad wanaagsan oo muuqaalada waxaan ku arkay kaliya nuuna waxa weeyaan marka xafaayada pamperska caruurta loo xiro la rabo marka in kaadida ay caruurta iyo waxyaabaha kale bilan baa iyaduna jirto muuqaalada aad ugu maan arkayn waana dee bahal faa'iido badan oo dumarku ay isticmaalaan toddobaadka marka ay ku jiraan bilan maxay kaga duwan tahay waxyaabo badan baa jiray oo suuqa ku jiro kambaniyo kala soo saaro kambanigiina maxaa lagu hubiyay oo ay kaga duwan tahay si haweenku marka badankooda ay u isticmaalaan maxay kaga duwan tahay waxyaabaha kale horta su'aashaas waa su'aal wanaagsan marka taa intaan ka jawaabin waxaan jeclahay bal inaan marka hore wax ka sheego waxyaabihii wadankeena ka jiray 20kii sano ee ugu dambeeyay sida aad la socoto waxyaabaha ummadda Soomaaliyeed sun baa lagu daadiyay dawo dhacda loo keenaa inta dhacday baa loo keenaa oo waxa loogu talagalay in wadamada kale la geeyo oo Afrikaanka ah oo dhaqaalahooda uusan kor u kacsaneen marka anaga waxaan jeclaysanay maadaama aan alaabtan sameeyno in ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto aan u siino chance inay iibsadaan alaab tayadooda aad u sareyso oo la mid ah tii wadamada Mareykanka ama Europe ama meel walba lagu iibin jiray ayagoo de markaasna ku iibsanaya ma garata qiimo aad u la mid ah qiimihii hadda suuqa uu ka joogaba marka waxaan go'aansanay hablaheena inaysan mar dambe xiran alaab aan tayadooda aad u wanaagsaneen caruurteenana aan loo xirin alaab tayadooda aad u xun tahay oo loo diiday caruurtii kale mise cadaanka ahaa mise carabta ahaa mise wadamada kale ka yimid ee horumaray maadaama annaga aan sameeyno waxaan rabnaa inaan chance u siino in dadkeena ayagana noloshooda aan ku soo kordhino alaab tayadeeda aad u wanaagsan tahay kambanigiinu waan arkaa imika inta qofeed ka arkay dad dhalinyaro oo firfircoon idinka muuqata tihiin ama wada Soomaali kaliya mise ajaanib baa gacan idin kula leh kambaniga maamulka Soomaali baa abeeslaan ka madaxa laakiin ajanabina way ka shaqeeyaan oo way ku jiraan oo tusaale ahaan warshada Mareykanka ku yaala waxa ka shaqeeya ilaa 60 qof 60kaas qof ilaa 90% waa dadkaas Mareykanka ah mise cadaanka mise madowga mise Isbaanishka isugu jira marka labadaba waa isugu jirnaa waxa iyaduna cajiib magacyada aad u doorteen marka loo eego oo ah Nuuna iyo Bilan halkee ka yimaadeen magacyadaas Nuuna aniga markaan yaraa waxaan maqli jiray mar walba Nuuna soo qabo Nuunaha saanyeel marka dad badan oo Soomaali inay la maqleen way la tahay marka waxaan go'aansanay bal Nuuna inaan ka dhigno xafaayada magaceeda dadkii wadamada dibadda joogana aan barno magacaas in Nuuna baby yahay magac Soomaaliyeed yahay oo sida la socotaan bada adduunka wadan walba ummad walba markay wax alifto magacooda ay ku saleeyaan shirkadaha hadda baabuurta sameeyso kala Toyota waa magac Japanese Hyundai waa magac Korean marka annagana waxaan go'aansanay inaan hirgelino magac Soomaaliyeed aan ka dhigno global brand oo adduunka meel walba laga barto maadaama uu easy yahay sida Nuuna loogu yeelay marka Bilanna iyadana waa magac dumar marka maadaama bishii mar ay yihiin waxaan wax dumarka u yimaada Bill iyo Bilan marka waa Bill dhalatay oo kale xagaasi ka socota magac qurux badan baa u bixiseen Bilan waa wax marka aad iyo aad runtii u wanaagsan waa sheegteen oo Mareykan baad ku leedihiin oo kambanigu halkaa weeye halkan imika aad joogtaan Hargeysa ma ka hirgelinaysaan iyo dhulalka kale ee Soomaalidu degtay aadka looga baahan yahay marka hore qorshaha wuxuu yahay maadaama Hargeysa fikradii ka dhalatay meeshii ugu horeysay asalkeeda hore ay ahayd in marka hore iyada si fiican looga hirgeliyo marka hadda wadankii waa soo degnay kadibna aan ku fidino dhulalka ummadda Soomaaliyeed degto oo dhan markaas kulay waxa regionka oo dhan marka Hargeysa ay u noqoto meeshii ma garatay
alaabta uga imanaysay mise looga distribute garanayo marka dhawaan ba ka hirgelin xayisiiski waa kanoo waa la arkaa in badan hooyooyin badan baa raadinaya waliba dumar badan oo Soomaaliyeed marka dhawaan ba insha Allah ka hirgelin doontaan hadduu Allah yiraahdo duu ilaahay yiraahdo bisha hadda soo socota markii ugu horeysay hooyooyinka iyo hablaha magaalada Hargeysa waxay chance u heli doonaan inay dukaamada waaweyn ee magaalada ka iibsadaan alaabteeda marka kulley dukaamada waaweyn ee magaaladana waa la xiriirnay sida Kayse Bushaare sida Saxadiin ka Edna supermarket marka meelahaas oo dhan oo magaalada way ka wada heli doonaan alaabta Ilaahay oo rajeynaya iyadoo safaf dhaadheer loogu jiro inaanu arki doono oo markaasi alaabtiina la iibsanayo waxa aad u qurux badan oo farxad galiyay waayo ma rumaysneen ilmo Soomaaliyeed baa ku sawiran ajaanib baan moodayay marka dhamaan masaasoo kala moodo Soomaali caruurta ku sawiran marka kuwa ajaanib way jiraan laakiin anaga company ahaan waxaan aaminsanahay caruurteena caruurka qurux badan baa adduunka inay jiraan marka waxaan go'aansanay inaan marka hore caruurteeda Soomaaliyeed ku xayeysiino marka Mareykankana sidaas oo kale wadamada Afrika aan dirno caruurta Soomaalida waa u dirnaa laakiin kuwa cadaan iyo Mexican iyo Arab way jiraan oo kale oo aan ku qorno laakiin markuu ugu horeyso waxaan ku bilaabnay ilmo Soomaaliyeed waa ujeedaa gabadhaas waa gabar yar oo qurux badan aad iyo aad ma sha Allah xoog qurux badan maxaa marka labadan un baynu sheegnay maxaa kale oo kamida alaabta soo saartaa waxaa kale oo kamida actually bahalkan wipes-ka la yiraahdo oo de loogu talagalay caruurta marka ay saxroodaan aan hooyada biyaha haysan marka masaxda kaasa loogu talagalay waxa kale oo asagana hadda soo socdo sanadka dhamaadkiisa aan soo wadna alaabaha wax lagu meero waxa kamida jikada dhulka lagu meero musqulaha daaqadaha alaabta leatherka ah ee guryaha taale quruxda badan mid loogu talagalay wipe loogu talagalay TV-ga iyo telefoonada gacanka iyo waxa lagu masaxo marka Ilaahay yiraahdo waa soo socotaa anaga qorsheena wuxuu yahay inaan nolosha dadka Soomaaliyeed kor aan u soo qaadno si alaabteeda aad u wanaagsan tahay aan u siino waan gartay inta isticmaashay alaabta uu soo saaro company-giina Daawus iyo inta aan isticmaalin ee hadda rajeynaysa markaad suuqyada soo gelisaan inay isticmaalaan maxaad hawada u marinaysaa fariin oo aan ka gaarsiinaa dadka wallahi fariinta ugu muhiimsan waxay tahay in company-ga horta yahay company Soomaaliyeed yahayna company-ga ugu horeeyay oo Soomaali leedahay oo wadanka Mareykanka gudihiisa warshadna ku sameystay aadna ku soo saaray kana hirgeliyay wadankaas marka ummadda Soomaaliyeed waxaan ka rajaynaynaa inay ayagana nala gacan qabtaan sidii ay hirgeli lahayd wadanka gudihiisa maadaama aan u soo istaagnay inaan noloshoodina kor u soo qaadno alaabahan kale ee tayadooda aad u xun tahay oo caafimaadka caruurta ama dumarka wax walba oo xunna aan ka bedelno ma garatay aan wadankeeni ummadeeni aan horumarino oo adduunyada kale la sinno aad baa u mahadsan tahay kaasina waxa uu ahaa madaxa shirkadda Daawus Maxamed Ibraahim Guuleed oo aanu ka wareysanaynay wax soo saarkooda iyo alaabaha ay suuqyada ku iibiyaan aad baa u mahadsan tahay Maxamed waan idin mahad celinayaa wiilal Soomaaliyeed oo dhalinyaro oo waxa saa u qiimo badan iyo sameey aad baan u mahadsan tahay adiga mudan nimco intaasi ayaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka dhamaan way mahadsan yihiin farsamayaqaanada nagala qayb qaatay Cali Cismaan Calimaano iyo waliba Cabdirasaaq Daawus waa Nimco Samriye iyo Maxamed oo idinkaga tagay sidaas iyo nabaday بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم مقعيق وحلا يراضى عبد الرحمن مقعيق وحلا يراضى محمد جامع أحمد وكم مقعد ليل قبياية مقعيق ولي الله علي محمد عبد ولي كمقعد إيراب بيكلو أنا مقعيق وحويان إكران سعيد جيره وحنا هاي مكيلها تكون كلام حي عين الشمس حلال فوت وحنا كيالا مقالة قبل كأما منصورة مقالة أنا وحلا يراضى مينيابوليس waxaan business ku soo jirnay muddo aad u badan oo laga bilaabo 1997 anagoo leh istooro kala duwan oo ku yaala magaalada daafiyaheeda iyo gudaheeda haddaba waxaa imika ku soo kordhamay businesskii inama Soomaaliyeed oo company
daa'uus la yidhaahda sameeyey kaasi oo supply gareeya keena alaab aad iyo aad u qiimo badan baahidiisuna aad u sarayso niman dhalinyaro aqoon-yahanaa baa isu tegay waxay sameeyeen warshad runtii aad quality-geedu u fiican yahay production-ka ay soo saarayso kaas oo ka fiican kuwa iyaga kale oo dadku ay isticmaalaan waadna ku arki doontaan meelo badan production-kiisu u gaadhay Africa iyo Asia labadaba sida Indonesia iyo South Africa iyo waa gaadhay sidaa awgeed hooyooyinkii qaatay aad bay u ammaaneen waxay yidhaahdeen aad buu wuxuu uga fiican yahay dhaybarrada kale waayo waxaa weyn jirmiga ama cudbiga alaabta loogu talagalay inay ilmaha kaadida aanay dhaafin ayaa aad u fiican quality-gooda male dhaybar rash waxa la yiraahdo oo carruurta marka dhaybarrada loo xidhay ku kaajaan uu ka soo yaaco carruurta cuncun ama barabara aad ku aragtaan ama finan aad baan u soo dhaweynay waxaana jeclaysanay inaan gadno bardhagtiga maadaama ku jiraan ama dad Soomaali ay keeneen aadna uu fiican yahay lagana soo shaqeeyay quality-giisa haddii runtii idin sheego dhaybarkan waa dhaybar aad loogu ooyay فرحت كبير وين منيابوليس جيت كاسا جيك إد الإنجيلية الجنبية إلا ولب جيت كاسا إد انقاذوها ين إد الإنجيلية ونونا نفتان ولي فضلنا إن جيت كاس استعمالنا درس كدوا استديد الدرس كان إم هكبر ويديا بنونا هدا عرقاسا ولي أستراء ولا عجي كلام أنت وحنو عادي أدوك فرح سلاي أنو جروبكي كلها بسنسيدا مقالة منيابوليس inaanu inamada isla garab taagno wax kasto ay keenayaan taasi oo aan stooradayada gacmo furan iyo aan ugu soo dhaweynay si product-koodu uu socdo